markaan dee Shiinaha kasoo dhigtay masterkii waxaan runtii master ka dhigtay oo aan waxbarasho ka helay wadamada Yurub qaarkood marka ayaguna waxbarasho bay leeyihiin runtii scholarship ay bixiyaan marka dee programyo waaweyn baa jira oo مثلا hadda ka hadlayno wadanka Ingiriiska oo kale tusaale ahaan wuxuu leeyahay barnaamij weyn oo Chevening la yiraahdo oo dee Soomaalida xariisan karto xilligan furan bishii 8 ilaa bisha maaragtay 10 oo kaleeto barnaamij kale uu leeyahay laakiin aysan Soomaalida xariin karin waxa kale oo jira mid la yiraahdo maaragtay Mastercard Foundation oo jaamacadda Ingiriiska qaybtooda ay bixiso qof ku dhigan karo wadamada kaleeto sidoo kale waxay leeyihiin wadamada Yurubta barnaamij مثلا la yiraahdo maaragtay Erasmus baa jira oo isagana loogu talagalay marka kaas hadda Ingiriisku kale hal sano weeye masterku laakiin Erasmus oo kale waa 2 sano masterkiisu oo xasameynaysa semester waxa ku dhiganaysa wadan gaar iyo jaamacad gaar marka waxa laga yaabaa inaad ku soo hormartid مثلا Holland oo semester ku qaadatid sanadka qaybta dambe aad Jarmalka oo kaleeto ku dhigatid semester kana ku soo dhigatid maaragtay Talyaaniga marka la 4 wadan oo kale aad ku dhigatid 2 sano kaasna wuu jiraa Soomaalida xariisan kartaa marka la yiraahdo Jarmalka oo kale waxay leeyihiin مثلا barnaamij la yiraahdo DAAT oo kale iyo barnaamij kale oo East Africa oo u talagaleen ay leeyihiin Holland oo kale waxa ka jira program isagana la yiraahdo OKP Orange program marka runtii fursado badan baa jira iyo qaar badan aan ogeyn dabcan oo dadka kale ay ogaan karaan haddii aan ku soo laabano kan UK waxa xustay ama sheegtay inuu jiro barnaamij 2 nooc ka kooban mid Chevening la yiraahdo iyo kan kale ah Mastercard Foundation marka labada maxay kala duwan yihiin okay Chevening oo kale waa program weyn oo wadanka Ingiriiska bixiyo iska leh runtii marka waa master hal sano ah wadamo badan oo ilaa 160 dal ka badan buu siiyaa oo ka soo qayb gala marka wadan kasta wuxuu leeyahay number quota loo xiraa iyadoo la eegayo wadankaas mujtamaca ku nool intay leeyihiin marka waxa weeye kan kaleeto laakiin waa program weyn oo Mastercard baa bixisa oo waxa weeye Ingiriiska iyo meesha la yiraahdo Canada iyo jaamacadda Afrika ku yaala South Africa oo kale Pretoria iyo qaar ku yaala Uganda oo kale Makerere iyo Ethiopia qaar ko jaamacadda Bahardar oo kale iyo secondary Nobo macnaha iyo qaar xitaa ku yaala maaragtay wadamada Carabta oo kale hadda meesha la yiraahdo waxaan ogaa Lebanon oo kale Beirut jaamacadeeda online America ku leeyahay marka program qoladaas bixiso oo meelo kala duwan ah ardayda ay tagaan marka jaamacadda Ingiriiska oo kale oo Yurub ku yaala ayaa qayb kamid ah ku jirta oo la soo xariisan kara marka laba hab bay waliba leeyihiin oo ah qaarna inay online ku dhigan karaan oo ay wadankooda jooga oo maaragtay part time shaqaysanaya inay part time jaamacadda dhigtaan nidaamkaas uu jira waxa kale oo jira inay jaamacadda yimaadaan toos u yimaadaan marka waxay ka midaysan yihiin inay scholarship yihiin jaamacadda laga bixinayo runtii aad qaali u ah hal sano ay tahay hadda jaamacadda imaanayso toos u dhiganaysid caafimaadkaagii iyo noloshaadii iyo waxa ku noolaanayd waxaas dhan lagu qabo waxyaabaha kala duwan yihiin waxa weeye cidda bixisa oo Ingiriiska iyo Mastercard iyo haddii ilaahay ku idmayo shuruudaha qaybtooda oo kale مثلا scholarship Ingiriiska Chevening oo kale shuruudiisa waxa kamid ah inaad wadanka ay ku laabatid markaad waxbaratid oo kale adoo waxyaabo noocaas kala duwan yihiin oo soo details laakiin waxa muhiimka ah oo ah in jaamacadda lagu qabo nolosha lagu qabo oo lagu siinayo lacagta hadii waxa kala duwan yihiin Chevening marka waxa uu san lahayn ama Mastercard ku leeyahay kamid ah inaad jaamacadda online soo dhigan karin meesha imaanayso oo aad ku dhiganaysid maaragtay jaamacadda ayna hal sano tahay oo ay tahay master aad 12 bilood gudahood kaga qalan jabinayso shahaadada ku qaadanaysid cilmi baarisna uu sahaynay maadooyin course dhiganayso 10 raawiye kaas waa Chevening adeed Chevening qofka raba inuu wax way maaragtay xariisto oo apply gareeyo kale shuruudaha ugu horeeya ay tahay qofkaas maaragtay inuu buuxiyo waxa kamid ah noogu xusi kartaa waxa kamid ah runtii shuruudaha master weeye master marka waa inaad haysataa shahaadadii ka hooseysa ka horeysay oo bachelorka ahayd waxa kamid ah
khibrad shaqo inaa haysatid oo u dhiganta 2,000 saacadood meelahaas sanadii bar celcelis ahaan baan filayaa inay tahay inaad shaqaynaysay ka badan waa shaqayn kartaa dabcan ka yarna waa shaqayn kartaa laakiin waxay ku xiran tahay inta saacadood maalintii shaqaynaysay marka 2,000 saacadood isku gaartaa meelahaas aan ku ogaa hadda wax laga bedelin 2 sano u dambeysay marka waxaa kaloo ka mid ah marka laga soo tago shahaadadaas waddanka ingiriiska maadaama uu yahay waddan afka ingiriiska looga hadlo oo meeshii afku ka yimid ah waxaa la rabaa waddamada aan ingiliishka looga hadlin in ardadoodu ay haystaan shahaado sida hadaan soo sheegay ingiliishka ah IELTS oo kale aad u tixgeliyaan marka sanadahan dambe qolada scholarshipka bixisa ayagu kuma weydiinayaan laakiin jaamacadihii aad tegi lahayd oo scholarshipkaas ka tirsanaa oo aad casharadii ka soo qaadan lahayd ayaa kaa raba marka qolada scholarship ku siinaysa macnaheedu waxa weeye ayagu lacagtii kaa bixinayaan oo ku siinayaan jaamacad laakiin waa inaad soo heshaa oo jaamacad ku aqbashaa marka jaamacadihii baan ku aqbalaynin haddii aadan shahaadada wadan marka shahaadadii waxbarashada ee hadda dhiganaysa ka hooseysa bachelorka ahayd iyo waxaa loo baahan yahay shahaadadaas ingiriiska iyo waxaa loo baahan yahay khibrad shaqo waxa kaleeto waxa weeye waa farsamo sida wax loo xareeyo ah oo runtii مثلا waxay leeyihiin su'aalo la rabo inaad ka jawaabto essays oo waxa qoraysa essay ilaa 4 xabo ah oo maaragtay ku saabsan qofka kartidiisa ama hogaamineed iyo maaragtay sida bulshada ula macaamilo iyo hadafka nolosha ka leeyahay qorshihiisa iyo UK ku dooranayo iyo wixii la mid ah marka haddii aan kusoo laabano tan waxbarashada oo macnaha ay ka mid tahay qofku inuu haysto shahaada bachelor kale ma bachelor kaliya ama inuu master oo hore u soo qaatay oo markaas oo fursadda labaad u raadinay ay tahay masterka labaad soo waxa weeyaan bachelor kaliya hadduu haysto uma baahna master kale inuu sameeyo oo wax weytanaad wax booskaas uu ku buuxin karaa dabcan marka master hadaysid horta waxa khasab ah inaad bachelor haysatid waa khasab laakiin haddaa master kale ta haysatid ayadana waa samayn kartaa marka badanaa scholarshipkan in la helo ma fududa kaaga baahan yahay dadaal badan iyo karti badan iyo maaragtay dee wax badan u baahan yahay marka waxaa dhacda qofka dee bachelorka oo kale waxa laga yaabaa inay la tartamaan kuwa kaloo master ah oo dee ka khibrad badan oo ka aqoon badan oo ma garanaysaa marka intaa ku reebaan laakiin waxaa iyaduna muhiim ah in la fiiriyo maaragtay wadamada xagga waxbarashada standardkeeda ku kala fiican yihiin marka wadamada qeybtood oo kaleeto waxaa laga yaabaa jaamacadahooda bachelorkooda inaysan jaamacadaha ingiriiska intooda badan aysan toos u aqbalin marka ay noqonayso markuu qofku ku barto waddan waxbarashadiisu runtii tayadeedu aysan aada u xooganayn inaysan jaamacaddii aqbalin hadduu bachelor la yimaado master baa ka dhiganaya marka wuxuu u baahanaya inuu master soo qaato si ay markaa u yiraahdaan okay hadda waad u qalantay inaad masterka soo gasho marka waxaa dhici karta haddaa ka imaanaysa waddan waxbarasho tayadooda hooseyso waa bachelor kaliya wadatid waxay u badan tahay in jaamacadaha waaweyn oo dhan oo fiican ay ku diidaan ama haddii xitaa ay ku ogolaadaan inay kugu adkaanayso inaad 1 sano gudaheed master kaga dhigatid marka qofkii heli kara dee waxa fiican inuu master haysto haddii kale waxa fiican inuu khibrad shaqo oo fiican haysto oo qof maaragtay muddo soo shaqeeyay oo wax qoray oo dee intuu wax bartay ka bacdi wax badan sameeyey inuu yahay qofku oo ay taas caawiso marka qofku apply gareeyo kale wax weeyaan maaragtay barnaamijka socodshadiisa ilaa intuu natiijada aqbalaada ka heliyo waqti intee la ag bay qaadan kartaa barnaamijkaas runtii wuxuu socdaa muddo sanad intaad bilaabaysid iyo intaad ku guuleysanaysid waxa weeye xilligan oo kale hadda bisha 8aad ayay furayaan marka 3 bilood bay qofka siinayaan fursad ah inuu ku xareysto marka bisha 8aad ilaa bisha 10aad 3 bilood dadku waxay dirsanayaan applicationkii 3 bilood oo ku xigta bisha 11aad 12aad iyo bisha 1aad ee sanadka 3daasna qoladii loo dirsaday codsiga iyo applicationka ayaa waxay sameynayaan inay wixii akhriyaan oo qiimeeyaan marka waxay soo saarayaan short list ama maaragtay ka soo xulanayaan sababtoo waxa soo xareysanaya numberka ay bixinayaan waa 1,600 oo kale meelaha sanadkii laakiin waxa laga yaabaa xareyso 80,000 oo kale iyo 70,000 iyo marka dareemi kartaa
yani waxaa kasoo baxaya wax aada u yar boqolkiiba. marka waxaa dhacdo bisha labaad oo kale marka la gaaro ay waxay sameeyaan, bisha koowaad oo kale marka la joogo ayay wixii ay u arkeen inaysan short listiga soo geli karin ayay waxay u diraan email diidma ah. waxaa dhacaysa marka bisha labaad marka la gaaro dadkii lasoo short list gareeyey oo lasoo yareeyey ayaa email loo dirayaa oo waxaa lagu casumayaa waraysi in la yeesho oo wixii maaragtay meesha ku qorteen iyo waxay dirsadeen iyo laga waraysto. marka adigu processka waraysigaabaa wuxuu soconayaa haddana ilaa 3 bilood, bisha labaad ilaa 3aad 4aad. 3 bilood marka intaa socoto haddana waraysigii dadka qayb baa kusii haraysa ama waxaa la gelinayaa kayd oo haddii inta la xusho qayb ka mid ah wax ku dhacaan ama ay diidaan ama ima waayaan ama xanuunsadaan ama dhintaan lagu bedelo. waxaa dhacaysa bisha 5aad ilaa bisha 7aad, 3daas biloodna waxaa socota in dadkii maaragtay loo diro emailkii guushaha oo waad hesheen la yidhaahdo baalka ku guulaysateen, in ciddii maaragtay ka cudur daaranaysa ay ka baxdo oo kuwii kale oo la geliyay kaydkii reserve-ka lagu soo bedelo. kabacdi haddana waxaa bilaabanaysa fiisadii inaa xariisatid bisha 8aad oo kale, haddana bisha 9aad marka waa imanaysaa. marka sanadkaasaad ku jiraysaa nidaamkaas. qofkii guulaysanaya weeye, qofkii dee dabcan guulaysan waayana ilaa 6 bilood uu kaga dhamaanaya, kaga haraya processka. inta haddaan saa kaga soo tagno markuu qofku UK yimaado oo kale scholarshipkaas wuxuu noqonayaa mid full scholarship qofka caafimaadkiisi, noloshiisi iyo deegaankiisiba ma la ku fargaraynaya? runtii kan hadda aan sida gaarka uga hadalnay oo kale waxa weeye waxay kuu qabaan safarkaagii ama tigidkii waxaad halkaan imaatid, intaa laabanaysid iyo fiisada lacagteedii. wadanka markaa imaatid jaamacaddii waa lagaa bixiyey, lacagta ku noolaan lahaydna waa lagu siinayaa. caafimaadkaaga iyo waxaagii bay kugu jiraan, caymisba ku jirtaa. marka waa package isku dhan runtii. marka qofka asagoo intaasoo dhan waxway laga kofargareynayo oo kale ma loo siinayaa ama ma helayaa fursad jaanisa inuu macnaha haddii ku shaqaysto oo wax siyaada macnaha ama dhaqaale siyaada uu ku samayn karo? waa lagu ogolyahay. isbuucii oo kale isaan soo nahay dadku waxay shaqeeyaan sida caadiga ah. qofkii full time shaqeynaya ilaa aduu 45 saacadood oo kale 40 saac. marka kan waxaa qofka ardayga waxaa loo ogolyahay inuu shaqeeyo part time oo maaragtay inuu shaqeyn karo maalintii ugu badnaan 4 saac ama asbuucii marka la xisaabiyo inuu asbuucii shaqeyn karo wax u dhigma 20 saac aan ka badnayn. ilaa 20 saac baa loo ogolyahay asbuucii inuu shaqeeyo. taa macnaheedu waxa weeye maalintii 5 maalmood oo la shaqeeyo weekdayska marka lagu base gareeyo waa ugu badnaan 4 saac maalintii shaqeyn karo. marka la isu geeyana asbuucii 20 saacadood. ka waran maxaa dhacayo qofkaas la keenay haddii ay noqon weydo inuu wadankiisa ku laabto, maadaama shuruudaha kow macnaha qofka wax way lagu keenayo ama lagu soo aqbalayo ay ka mid tahay markuu xiisa dhamaysto inuu wadankiisa ku laabto? sida caadiga horta waxa weeye wadanku sharciyu leeyahay oo qof markaa tahay international ah iskama joogi karto, waana wada sharci ku joogtaa. marka dee visa ku joogtay arday, fiisada ardayga markaa ku joogtay macnaheedu waxa weeye markan fiisadaada way dhacday. marka jaamacadda dhamaysid isla markiiba dhowr bilood ka bacdi bay dhacaysa, 4 bilood ugu badnaan ka bacdi. markii kaa dhacdo marka dabcan ma shaqaysan kartid, suuqa ma aadi kartid oo shaqadii la markaa ku shaqeyn lahaa wuu kaa dhacay oo qoladii shaqada waxay ku dhahaysaa soo caddee, guri ma karaysan kartid, wixii oo dhan. marka wuxuu u baahan yahay qofku inuu waddo kale oo sharciga helo inta sharcigaas ka dhicin. oo dee marka ama waa inuu laabto ama inuu waddo sharciga helo. masalan hadduu waxbarasho kale helo uu sii wadanayo, haddii uu dee shaqo helo shirkado iyo ka helo ay siiyaan maaragtay waxa la sponsor gareeyaan oo iyagu uu kaa ku xaraysto fiisa shaqo, noocaas kala u samayn karaa. laakiin qofkii iskama joogi karo oo dee wadanka sharci darro kuma joogi karo, dabcan dambiil uu noqonaya. waxay noqonaysaa in sharcigu soo qabto oo lagu qaado maaragtay khaladka u galay. waxaan rabaa inaan la wadaago bangi online aan isticmaalo. bangigan awood wuxuu leeyahay inuu sarrifo 40 lacagood oo kala gedisan haddii aad dadka safra ama qorshaha safarka ugu jiro. waxaan aaminsanaa 100% bangigan inuu ku anfacayo. bangigana furanaysaa, kaarkooda aad dalbanaysaa, kadibna lacagta u baahantay inaad isticmaashidba bangigooda ku shubaysaa, saasana kaarkooda ku isticmaalsaa. 40 wadan in lacagooda sarrifaan mid ka mid ah haddii aad joogtid ma u baahna lacagta inaad meel kale ka sarrifatid, automatically bangigana ku
sarrifaya oo isticmaalsa xarunta ugu weyn wuxuu ku taalaa UK bangigan oo bangi boqolkiiba badanaa dadka internet ka shaqeysta baa isticmaala midna hadda aniga UK baan jooga haddii aan rabo inaan Yurub aado kale ma u baahna lacag euro waxaas inaan qaato bangigan isticmaalkiisa ugu filan asaga automatically ii sarrifaya lacagtii oo wali wuxuu ku sarrifiyaa qiimaha ugu hooseeya aan hubo boqolkiiba inaan ku qanacsaan sarrifka ugu fiican suuqa buu ku siinaya haddii Yurub aad joogto wadamada Scandinavian-ka qaarkood euro laga isticmaalo lacagta koronta aan euro laga isticmaalin waa tabto kale haddii aad u socotid East Africa gaar ahaan Kenya shilinka xataa waxa uu ku sarrifiyaa saaxiibiyaan sidoo kale haddii aad u socotid wadamada Carabta sida maartay Sacuudiga ama Imaaraat asna waa sidoo kale sidoo kale haddii aad u socotid wadamada Asia sida China kala ganacsi loo aado waa sidoo kale asaa ku sarrifaya iyo Indonesia oo badan dad dalxiis ugu aadaan kale marka bangiga linkiisa waxa ka helaysaa qaybta description-ka iyo qaybta comment-ga halkaas ka raaci kartaa saaxiibayaal barnaamijkeena intaas uu ku egyahay waxaan mar labaad iyo mar koowaad mahad celinayna Khayra Cabdishakuur oo xogta waafiga faahfaahsan la wadaagay waxaan filayaa muuqaalkaasi barnaamijkaas inaad ka faa'iideysateen Cabdishakuur aad iyo aad ba maastan mar saddexaad adiga mudan ku mahad celinaya adiga laftirkaaga inaad runtii barnaamijkan soo qaban qaadisay oo igu casuuntay channelkaaga ama boggaaga iyo dadaalkaaga ku doonaysid maaragtay in dhalinyarada kugu xiran aad waxa weeye ku tustid wadooyinka la mari karo oo lagu raadsan karo maaragtay fursadaha looga faa'iideysan karo waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan asxaabtaada